maxaa lagu xushaa isleedahay my body jirkayga yeah waagar waxaa miisanahay inaan haysto jir qurux badan so that's the السلام عليكم مقعي قوات عدية محمد وحن درتما ترتنك قروح الصومالية أنا بوكم مدلي دون دلكيجا ترتنك قروح أفريقيا وحن رجينا هي أنا كاس كوب كسوق سيدا كان كوب كسوق عمل حقيقة نادي هذا وكفرحتنها ما دام أنا قضي كانت قوات وأنا في لا إذا عمل نقنايا مر لواد وحن مهد علينا يا هني أو أحد معلن آدي وفي عن آدي نطوا برتي مدنا تكوبات إذا أكله ما دام أنا سيدا كصباحني آدي وكم هد علينا يا وحاك لو ترتنك أنا كده حياة إلى واتنقف الحمد لله كانت كوبات كانت الوادي كانت سيدا حدينا تصبحني ما شاء الله أديك ما قجرات تأديد 21 هي مقدشة ما كنا رتي مسا غرباك إمادي بلناشة أنا كهيرة أنا كل شيء لكن مقدشة كبر باري tartankii aad ku soo baxday dad baa waxay leeyihiin goobtii lagu qabanayay waxa loo isticmaal hab ka duwan dhaqanka suuban sideed u aragtaa dadka sidaa leh marka waxa kor laga sabarayo wax badan macna badan ay yeelan karayaan hadda sabarka sidii loo sabaray ani ahaan aqligayga marka ka hadlaayo sabarka kaamirada saasana loo sabaray waxa marka saas loo sabaran kaamiradu way isbedelaysaa sidaas daraadeed ani ilaa hadda balaas uu leeyahay laakiin kaamirada qaldan kaamiradu waxyaabo fara badan ay qaldi kartaa sida idigan wala ogtihiin goormee bilowday inaad ku dhiirato thank you waxaan ku dhiiraday inaan bilaabo horta ani guligay waan jeclaa laakiin mis dhahaynin Soomaaliya si Soomaaliya la ku xili doonaa mis dhahaynin marka TV-ga waaga yaraa moodalka camal karbsara ina soo khasada inta ku xiran jiray sida moodalka camal soo jiray alxamdulillah maanta ilaaha hariyay iyo rumeeyay qofku wax si dhab hada u jeclaado oo helaya si niyada marka koobaad horta aniga ma jiro qof Facebook ay garasmi kaayso aalada adduunka ugu nacbaan Facebook ahaan jirto waligeed ma isticmaali faraha ana jir ma isticmaali Facebook alxamdulillah laakiin way hadda isticmaali sawir qasab isticmaala Maxamed magacayga Xamdi Cabdi Xasan waxa ay gabadha gashkaan talaba wallahi tartan qurux badan oo ahay tartan si qurux badan oo dhaco ahay waan faraxsanahay I'm proud in aan talabaad galay bas mar walba markii ugu horeysay miyaa oo aad ka soo qayb gashay tartankan ha Soomaaliya waa markii ugu horeysay ka dhacay waa markii ugu horeysay aan ka qayb galo rajadaadu maxay tahay marka insha Allah rajadayda inaan meeshan meel ka weyn tago waxyaalo ka waaweyn oo badan aan sameyn doono insha Allah baraha bulshada aad ayaa lagu hadalhayay Soomaalida markii loo eego habkay u tabinayeen maxaa lagu xushaa isleedahay my body jirkayga yeah waagar dadka oo ka duwan waxaa miisanahay inaan haysto jir qurux badan so that's the reason oo lii hadalhay sidee soo aragtaa marka maqashay sawirada Soomaaliya hadaan afta meel wuxuun wax waa laga eega wanaagan weir seriously so waxa leeyahay Soomaali Maxamed damaantiina wanaag fiiriyo xumaanta hal yarayo magacayga waa Mulyan Cabdullaahi Cali waxaan kamid ahaa tartayaasha habeenay tartanka soo guuleystay waxaan ahaa kaalinta saddexaad qof kale sidee aragtaa marka oo ku faraxsanaa walahi maxaa lagu xushaa isleedahay inta munaasabka heedaa isdhihi karaa saddex qof oo munaasabkeed oo quruxda loo xusho la rabay aa la helaa isdhihi karaa tartamaadkan kii ugu horeeyay oo ka qayb gashaa mise waxaa jirta tartamo kale oo qayb gashay kii ugu horeeyay ka qayb qorshahaaga muxuu yahay maxamiga inaa wadankayga guul soo hooyo ka tartanka kale taa ka qayb gali doono insha Allah